Daawade waxaan kula wadaagi doonaa arrintii Axmed Biif iyo hooyadiisa. Axmed Biif hooyadiisa oo mar labaad afka furatay oo ka hadashay social media muuqaal ay soo duubtay. Hooyadiisa oo sheegtay in ay dhibaataysan tahay jirdil aad u xooggan u geystay adeerkiisa. Axmed Biif uu oynayay mar kale xaramka ka soo galay live oo dhahay dambe social media kama soo hadli doono ama live kama soo gali doono, ninkaas hala qabto ee hala xiro. Arrintaas oo hadda ilaa iyo hadda lagu kala cadeyn la'san yahay. Adeerka oo asigana u hadlay qof aanan faldambiyeed geysanin markuu social media ka hadlayay qof qiiroonayo iska dhigdhigayo. Hooyadiisa oo jirdil aad u xooggan fiidiyowga kugu tusi doono loo geystay. Fiidiyowga waa fiidiyow kaa yaabin doona daawade. Hooyadii oo u jirdilaya adeerka uu leeyahay warka ayaad badisay, intaas warka ku jooji. Adiga waa hadal badisay ee hadalkaaga intaas ku ekee. Axmed Biif uu oynayo markuu muuqaalkii soo daawaday hooyadiisa oo degdeg live ku soo galay ummadda Soomaaliyeed dhan ka codsaday bisha barakeysan Ramadaan inay soo dhowdahay ee ka duceystaan ninkaas in laamaha amniga gacanta loo geliyo, ninkaas dhaqsi maxkamad lagu soo saaro. Arrintii oo hadda laba kacleynayso Axmed Biif oo mar dambe inuu social media kasoo dhex muuqan doonin, hooyadiisana ee rafaad ku jirto, ninkaas adeerkiisa uu cabiidsanayo. Axmed Biif oo si inta kalena raaciyay arrinta adeerkiisa inuu adeerkiisa salaada kaliya oo tuko ku dhahay, intaas kaliya hadda jirdil aad u xooggan uu ku geysanayo hooyadiisa sidii adoonsigoo kale oo u adoonsanayo. Axmed Biif oo zaid u ooyay hooyadiisa jirdilka loo geysanayo markuu muuqaalka ka dhex arkay, ayuu dadka bulshaweynta Soomaaliyeed ka codsaday in ninkaas la xiro oo xaqa loogu soo dhiciyo hooyadiisa. Fadlan daawade muuqaalada aan kula wadaagi doono jirdilka uu u geysanayo, fadlan daawade indhahaaga ku arag. meel aad joogtaba ku naalow oo ku noolow oo nimco ku hel waxaa dhashayna baari Allah kaaga dhiga muslimkan hooyo aabba Allah kaaga dhiga haddaad wax ii heli karin walaalahay keenay oo xaramkii jooga baanahay wiilkeennii iga xishooda mar dambe Facebook ma soo galayo, laakiin war fiican aan dadka ka maqlo iyo ninkaas waa la qabtay aan ka maqlo. Daawade haddaad muuqaalka soo daawatay fadlan waa naga codsi, fadlan janaalka oo noo qurxi oo subscribe noo dhig, gambaleelkana u furo. Intaas ayaad muuqaalka ku hakinaynaa, bal muuqaalo kan oo kale caynkan ayaa ku kulmi doonaa daawade.